Faransiiska ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen 40 dagaalyahan oo dhawaan weerar ka geystay xadka u dhexeeya Benin iyo Burkina Faso. 9 qof oo ku jira muwaadin Faransiis ah ayaa dhintay kadib markii baabuurtoodu ay ku dhufteen walxaha qarxa beerta qaranka ee waqooyiga Benin. Salaasadii, militariga Faransiiska ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn ay ku bartilmaameedsadeen mintidiinta ka dambeysay weeraradii Salaasadii wax yar kadib markii ay u gudbeen Burkina Faso wata mootooyin. War qoraal ayaa lagu sheegay in duqeyntii ugu horeysay ay ku dhinteen ilaa 10 ka mid ah mintidiinta kadib diyaarad dagaal la geeyay goobta, taasoo dishay 30 kale. Waxa ay sheegtay in dhammaan howlgalka lagu fuliyay heshiis lala galay maamulka Burkina Faso, inkastoo aanay suurtagal ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa dhacay. Haddana dadka qaar ayaa warkan u arki doona calaamad muujinaysa in Faransiisku weli aad loogu baahan yahay marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka Islaamiyiinta gobolka. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa la filayaa inuu dhawaan ku dhawaaqo taariikhda kumanaanka askari ee Faransiiska laga saarayo dalka Mali kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo taliyayaasha militariga ee halkaasi ku sugan. Waa Nasr Cumar, wararka Gobonimo TV.